بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan halka naga dhageysanaysaan waa idaacadda quraanka kariimka. dhegeystayaal iminkana ku soo dhawaada barnaamijkeeni su'aalaha ramadaanka ee yastaftunaka. albabina yajri fastaftihi falghayb munbajis ilman ala albabina yajri. barnaamijka yastaftunaka ala waxaan ku soo qaadanaa su'aalo quseeya bisha ramadaan. barnaamijkeena waxaa la diyaar ah fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir. iminkana waxaan gudagalaynaa barnaamijkeenii su-aasha ugu horeysa. saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh, gabar uu jecel naga dhexeeyo mala sheekaysan karaa maalin ramadaan ah, jecelkuse muxuu yahay? su-aasha xigta, ereyga ramadaan kariim ma la oran karaa? fadiilatu sheekh, saa'ilkan wuxuu leeyahay markaan shaqada aadayo indhahayga waxay qabtaan dumar qaqawan oo aanan asturnayn, arrintaas soonkayga wax ma u dhimaysaa? su-aasha xigta, saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh, habeenkii waxaan ilaabaa niyada inaan soonkii niyeysto, subaxdii ma ka dabageyn karaa niyada soonka? fadiilatu sheekh, tafadal. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، ضمرك أجانبتا أما نينكا كيانكا هو إنه قف كل شيء كيستو أما داوضو شيء نوكسون وحرام. مركا لو قف كور دونيان ولا حلالي، لكن بحد بين لا هاي حاجة أي باهظة ترتد رادد أي لوجو حلالي تاسنا. waa intay labada qof ku kala boganayaan aragooda inuu midba kala ku qanco. sheekada iyo iswaraysigooduna waa inta loo baahan yahay, laakiin intaa wixii ka sii badan xalaal maaha. siday dhalinyaradu imika wada dhaqmaan oo inay iska wada baxaan, iska wada dalxiisaan, isa sawiraan, istaataabtaan, istaawadaan, waxaasoo dhan waa xaraam. barakadana guurkay ka qaadaysa iyo camalkoodaba, waana eegmadii iyo hadalkii la diiday wey, kol haddii intii loo baahnaa ay dhaaftay. marka taa in sidaa lagu ogaado weyo daayartu sidaa dareenka ay kaga boganayaan mararka qaarkood baad odhanaysaa dee waa wax wixii lagu raaxaysanayaba oo xaaraan. taasi waa taa wey. ereyga ramadaan kariim hadduu qofku uga jeedo ramadaan baa karam iyo deeq le, sax maaha. laakiin ereyga kariim marna wuxuu noqdaa cidda wax deeqdee wax bixisa, marna wuxuu noqdaa shayga shariifka ah ee wanaagsan. waa kitaabun kariim oo kale, kitaab wanaagsan oo fiican wey. marka ramadaan wanaagsan hadday tahay dhib ma laha, wax diidayaana ma jiro. waxaase ka fiican bay leeyihin culimadu inuu qofku idhaha ramadaanun mubaarak, bil barakaysan oo dee ilaahay baa barakeeyey, oo bishu way barakaysantahay sida qur-aankuba u barakaysan yaho nebigaaba tilmaamay. markay ramadaan soo galayso waa kii odhan jiray waa shahru mubaarak, ataakum ramadaan shahru mubaarak. marka taasaa fiican bay dhahaan culimadu. dumarka ajaanibtaa ama suuqa jooga haddii ishu ay kaaga dhacdo min gayri qasdin, adiga oo aan u jeedin, dhib ma laha. laakiin dhibaatadu waxa way markaad ku celisa ee adigu aada daawato, taasaa dhib leh. النظرة الأولى لك وليست لك الثانية. أثرkii ahaa uu nebigu la hadlaya cali, ta hore adaa leh, dembi laguma qorayo wey, laakiin ta dambe ma lihid. marka una ishaan ayaad ka soo laaban doonta. habeenkii baan soo ilaaway niyadii bisha ramadaan ama soomkii, maalintii ma niyoon karaa? de waxaan filayaa adigunbaa qalad fahmee inaanad soo ilaawin. waayo markaad aroorta doonaysa inaad soonto, de xalay waad soo cashaysay, waad soo suxuuratay. markaad suxuuranaysay maxaad u jeeday? waxaad u jeedda ujeeddadaadi iyo qasadkaagu ahaa inaad soomtoba. markaad taraawiixdii soo tukatay, markaad soo suxuuranaysay, hadafku berri aad soontid buu ahaa. niyaduba waa intaaba. waxaad aroorta doonaysaa niyo la idhaah.
soomaalida waxay dhahaan ballan habeennimo kaa kac arooryuu leey haddaad xalay aynu wax ku ballanno aynu soo niyoonno subaxdii waynu bilownaa un waxa laga yaaba inu walaalkeen u jeedo tii erayada la odhanayay nawaytu sooma qadin taasaanan odhan inuu jeedaa laga yaabaa taasina ma sugna oo daliil ma laha laakiin waxaan xusuusin lahaa un soomka sunnaha baa maalintii la niyoodaay gelinka hore habeenkii waxaa faralka la soo niyoodaa niyadu waa waajib wallahu aclam jazaaka allahu khayra wa axsana allahu ilayka wa rafaca allahu qadraka fadiilatu sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waalidkayga oo asaasaqay oo aan waxba kala garanaynin oo dhakhaatiirtana inoo caddeeyeen inay kala garashadii ka tagtay ma waxaa layga rabaa inaan fidyo ka bixiyo ama inaan ka soomo su-aasha xigta sidaa muuqato waa hooyo waxaan ahay qof dumar ah oo uur leh marka kombiyuutarka lee saaro uu dhakhtarka u eego soonkeyga arrinkaa wax muu dhimaysaa su-aasha xigta saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh waqtigii dhallinyarnimadeedii waxaa iga tagay soon fara badan sannado fara badan oo aan qaangaaray oo aanan soomin sannadadaas tiro ahaan ma garan karo maxaa yeelaa saa'il kale wuxuu leeyahay qof habeenkii dhan soo jeeda maalintii dhanna hurda aadaanka maqrib u kaca arrintaa soonkiisa wax ma yeelaysaa su-aasha kale saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh wiilasha ciyaara kubadda cagta ma soomaan intooda badan hadhow ayay dib u soo qaleeyaan arrintaa xukunkeeda muxuu noqonayaa in kuba darteeda soon looga tago alxamdulilah sala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd waalidku marka uu asaasaqo waa qof waalan ayuu liiskiisa gelaya oo aan miyir qabin shuruudaha soomkana waxaa ka mid ahaa inuu qofku miyir qabo haddaanu miyir qabin soomku kuma waajibin sakaad fidrigunbaa ku waajibaya markaa lagama soomayo fidyana lagama bixinayo waxba laguma leh ruuxa dumarka ee tilmaantay inay sooman tahay ee kombiyuutar la saaray waxna ma gelin waxna kama soo bixin soomkana waxyaabaha jabiya wuxuu la jabaa mimaa dakhala wa mimaa kharaja waxama qofkii ka soo baxay ama galay soomkeedii waxba kama noqon ninka yidhi qallo badan baa laygu leeyo ma garanayo tiradiisa inta u badan baad qaadanaysa haddaad 5 bilood iyo 6 bilood ku shakisantay 6da qaado cibaadadu saas yaqiinta loo raacaa cibaadada al-ahwad wal yaqiin markaas dadka kale waa kuwa sunnaha soomay adigu faralkaas baad wadaysa sanad walba intaad kari karta ayaad soomaysa ilaahayna uu ku sakhiri doona insha Allah deynta allana sida dadka loo bixinayo baa iyadana loo bixinaya rasuulkuna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa fadaynullahi ahaq an yuqda deynta ilaahay baa ku haboon in la bixiyo qofku hadii uu seexday maalintii laakiin aanu waalayn soomkiisi waa ansaxaya sidii fiicnaysa ma yeelin qofkaas sirtii bisha ramadaan muu garan maalintii iyo habeenkiiba in cibaado lagu camiree maalintii cibaadooyinka uu qofku dhamaystirto soomka salaada quraanka tasbiixda dhikriga cilmigu baranayo shaqadii uu shaqaysan lahaa niyad wanaagsan uu ku shaqaysan lahaa waxa soo dhan inuu ka seexdaa waa nooc daciifnimo ah nooc fulaynimo ah qofku gaajada ka baqay way gaajo ka carar baa laga yaabaa inuu ku gabado hurdada oo salaada gaajada haba u soo toosin inta aan wax la cunaynin marka laakiin soomkiisi waa ansaxaya qofka ramadaan isagoo ku bad ciyaaraya jabiya ayraa waan soo qaleynaya waa dambiile bisha ramadaan maalmaha ka tagay gaboodfalka iyo xadgudubka kaga tagayna ajrigoodii soo heli maayo waana caasi waxana waajib inaanu dib ugu noqonin ilaahayna uga toobad keeno sanadaha dambana aanu ku noqonin qofkaas dadka mas'uuliinta ama kooxaha maamulayana waa inay ilaahay kaga baqdaan haday sabab u noqdaan dadka inay afuriyaan dambiga qoyb weyn bay iyaguna leeyihiin marka waa in laga feejignaado qofka ciyaarta iyo soomka isku karayaana waa halkeeda kii ka shakiyaana waa inuu soomkiisa ilaashado wallahu a'lam fadiilatu sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ahay wiil dhalinyaro ah hooyaday waxay joogtaa wadamada Yurub waxa ku dhacay dhaxan ama TB dabo ay qaadataa dawada aad bay u culus tahay oo cuno bay u baahan tahay ma iska afuri kartaa hooyo su'aasha kale saa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh macjuunku soonka ma jibiyaa waa buraashka lagu cadeeyo oo dawada wata soonka wax ma yeelaa su'aasha xigta ruux dumar ah cadar ma marsan kartaa bisha ramadaan fadiilatu sheekh su'aasha ugu dambaysa saa'ilkan wuxuu leeyahay qofaan dukan soon ma ka ansaxaya bismillaah su'aasha hore ah dawada
ay qaadanayso hooyada iyada oo ka maarmi weyda ama ay dawadu xiriirsan tahay bukaanna ay tahay dhaxanta waxaynu u fahmnaa inay tahay TB-di dawada TB-dana lama kala jiro 6 bilood dawadeeda iska qaadanaysaa rabadaanna way iska cunaysaa kadibna way soo qalaynaysaa ilaahay baa saacadeeyay quraanka fi suurati al-baqara waman kaana mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra qofku hadduu rabadaan buko intuu iska afuro ayuu soo qalaynaya maalmihii ka tegay in la eg dawada bahashan macjuunkan ilkaha ee lagu cadaydo waa lagu cadayan karaa laakiin qofku waa inaanu liqin wixii dheecaanka ahaa ee muudka ahaa ee dhadhanka lahaa waa inuu iska dhameeyaa waanaynu ogsoonna ilkaha aad bay ugu raagtaa hore ugama baxdo qofkii isticmaalay uu garanaya marka inaad iska daysaabaa fiican mar haddaanad muudkii iska dhammayn karaynin waad isticmaali kartaa laakiin inaad iska daysaa fiican cadarka qofku markuu sooman yahay waa maydhan karaa cadarna wuu marsan karaa dharka wuu bedelan karaa waa saliidaysan karaa intuba waa nadaafadiiyo waa sax rag iyo dumarba way marsan karaan laakiin dumarku dabadda lama bixi karaan hadday rabadaan tahay iyo hadday bilaha kale tahayba nabiguna wuu ka digay calayhi salaatu wasalaam qofka taariku salaadka ah wuu soomayaa oo soonka ka tag odhan mayno waa laba waajibo mid walba gaarkiisa ilaahay baa ugu leh laakiin waxaan leenahay salaada ku dar odhan mayno haddaana tukanayn soonkana iska dah oo cibaadooyinku wanaaji mooyaane ka tag ma leh cibaadadu lama yidhaahdo ama wanaaji ama iskaga tag laakiin waxaa la yidhaahdaa wad oo wanaaji marka qayb uu hayaa cibaadadii oo soomkiiya taariku salaadka laakiin salaadii baa ka maqan salaadana ku dar baynu leenahay wallahu aclam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ورفع الله قدرك فضيلة الشيخ dhegaystayaal intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii yastaftuunaka ee su-aalaha barnaamijka waxaa halkaan noogu soo gudbinaya fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda qur-aanka kariimka barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed salafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالغيب منبجس علما على ألبابنا يجري فاستفتحي فالغيب منبجس علما على ألبابنا